السلام عليكم ورحمة الله. كسو دوادا فهم كميديا iyo barnaamij cusub. maanta waxaan ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan sideen ku doortaa takhasuskayga jaamacadda. Kusoo dhawaada barnaamijka. lama inkiri karo in xulashada takhasuska jaamacadeed inta badan noqon karto arrin aad u cabsi badan ama wareer zaid ah keeni kara, iyadoo la ogyahay in qaar badan oo ardayda ka mid ah ka fikiraan in talaabadan doorashada takhasuska ay tahay arrin masiiri ah oo mustaqbalkooda go'aamin doonta. hawlwelin takhasuska aad dooran doonto kaliya ma ahan mid ku horseedi kara mustaqbal fiican, kaliya ka fikir waxaad baran doonto. kahor inta aadan go'aansan inaad barato takhasus gaar ah, iska fiiri qodobadan soo socda ee saameyn kara doorashada takhasuska. qodobka koowaad, ma jeceshahay takhasuska aad dooratay? waa inaad ihtimaam siisid ama aad jeceshahay takhasuska aad dooratay. waxay ka qayb qaadataa arrintan inaad si habsami leh u barato waxaad dooratay. haddaadan jeclayn ama lagugu qasbay takhasuska aad dooratay, waxay keeni kartaa in gebi ahaanba aad ka tagto waxbarashadaada ama isbeddel badan uu kugu dhaco oo ku aadan inaad bedeshid takhasuska jaamacadeed ee aad dooratay. arrintan ayaa badanaa ka dhacda jaamacadaha, waxaana arki kara qofka dhigta jaamacadaha, gaar ahaan ardayda bachelor degree-ga. qodobka labaad, awood ma u leedahay barashada takhasuska aad dooratay? awood markaan leenahay halkan waxaan ugala jeednaa wax kastoo aad awoodid ama waxaad awoodidba inaad sameyso ama aad xaqiijin kartid. sidaa darteed, doorashada takhasuska waxaa soo gelaya inaad awood u leedahay barashada waxaad dooratay, aadna ka bixi kartid. waa doorashada waxaad ku wanaagsan tahay ama aad danaysid. ka waran haddaad dooratid waxaadan xiiseen ama aadan awoodi karin inaad barato, waxaa laga yaabaa in niyadaada isdhahdo ma jiro waxaan la baran karin. sax, ma jirto waxaan la baran karin, keliya qofka ayay ku xiran tahay. markaan leenahay keliya qofka ayay ku xiran tahay, taasi ayaan ugala jeednaa awoodda. waxaan rajeynayaa inaad fahamtay. awood halkan markaan joogno laba ayaa loo qeybiyaa. midda koowaad waa awood shakhsiyadeed, taasoo ah xirfadaha aad u leedahay meelo cayiman. waa garashada waxa ku hareeraysan takhasuska aad dooratay, taasoo kaa caawin doonta shaki la'aan barashada waxaad dooratay. taasi ayaa la dhahaa awood shakhsiyadeed. haddaan u imaano awoodda xagga dhaqaalaha, marka la eego duruufaha jira iyo kharashka badan ee wax lagu barto jaamacadaha gaarka loo leeyahay ama kuwa caalamiga ahba, awoodda maaliyadeed waxay noqotay qodob go'aamiya xulashada takhasuska. sidaa darteed, inta aadan dooran takhasus gooni ah, ugu horeyn ka fikir ma awoodaa qarashka lagu barto takhasuska aad dooratay. haddaad awooddo waa sidii la rabay, haddaadan awoodinna raadi suurtagalnimada inaad hesho minxooyin waxbarasho. insha allah mowduuca minxooyinka waxbarashada waan ka hadli doonaa. qodobka saddexaad, fursadaha shaqo ee ay leedahay takhasuska aad dooratay. fursadaha shaqo ee mustaqbalka had iyo jeer waa lagama maarmaan in laga fikiro fursadaha shaqo ee ay leedahay takhasuska aad dooratay. qof walba wuxuu ku dadaalaya inuu helo shahaado jaamacadeed oo ka caawin doonta hadhowdii inuu galo suuqa helana shaqo weyn oo sharaf leh. sidaa darteed, baaritaan dheeraad ah samee si aad wax badan ugu ogaato fursadaha shaqo ee ay leedahay takhasuska aad dooratay. qodobka ugu dambeeya ee saameyn kara doorashada takhasuska waa takhasuska aad dooratay mustaqbal ma leeyahay. waxaan ku noolnahay casri tiknoolajiyadda horumar farsamo iyo hal-abuurnimo badan gaartay. waxaa soo baxay robootyo casri ah oo bedelay shaqooyin badan oo hadda jira. mustaqbalkan waxaa suurtagal ah inay bedelaan shaqooyin badan. sidaa darteed, takhasuska aad dooratay ka fikir mustaqbalka uu leeyahay. haddaan halkaas ugu gudubno qodobadaas, aan waxaan isla fiirino waxyaalo badan oo ku dhex faafsan bulshadeena oo ku aadan mowduucan. waxaa ugu weyn in waalidka ku qasbo canugiisa barashada takhasus gooni ah, taasoo ardayga aanu xiisaynin. waxaa wanaagsan in waalidka uusan ku qasbin ilmihiisa barashada takhasus aan canuga jeclayn. ugu dambeyn, qofka wax baranaya waa canuga ee ma ahan waalidka. mowduucaas halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. waxaan rajeynayaa in mowduucan wax badan ka fahamtay. halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. assalaamu calaykum.